بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa daawadayaashayda ku xiran barta YouTube-ka ee Burda Media. halkan maanta mowduucayga waxaan rabaa inaan kaga hadlo gabadh magaceeda iskugu yeedhay Goosha Isaaq, taasoo se la sheegay ka soo jeeda beesha habar awal caadaysatay cayda iyo aflagaadada beelaha Somaliland qaar ka mid ah sida Garxajis iyo habar jecel. anigu caayimayo beesha habar awal waa beel ka mid ah beelaha Somaliland dega, laakiin halkan waxaan ka sheegayaa dhaqan xumada gabadhaasi ay wado iyo isku dirka iyo xamaasad abuurka ay ka dhex wado Somaliland iyo aflagaadada beelaha mid loo dulqaadan karaya maaha. madaxweynaha qaranka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waan u hambalyeynayaa, Muuse Bixina waan u hambalyeynayaa sida fiican uu u wareejiyey jagada madaxtinimo, laakiin Muuse Bixi inagaa dooranay oo madaxweyne qaranka. habar jecel markay dooranaysay habar awal way ammaanaysay, geesiyey lahaayeen. Garxajisma aflagaadeynan habar jecel ama cid kale ma aflagaadeynayn. maanta haddaynu taageernay walaalaheen Garxajis waanu kursiga saarnay, markii Muuse lagu afgaran waayo uu baabi'iyey dalkiiba kala gooyey in aynu dacaytano aflagaadeyno maaha. marka Cabdiraxmaanna waa madaxweynaheeni, Muusena waa madaxweynaheeni. maanta doorashadii ololihii iyo rabashkiina u dhammaaday. maanta waxaa loo baahan yahay inaynu gacmaha isqabsanno u diyaar garowno difaaca dalka iyo sidaynu cadowga Somaliland iskooga difaaci lahay. maaha maanta dhexdeena inaynu isqabqabsanno. waxaan arkayay niman hubaysan oo le buuraan galaynaayo wajahadii beesha habar awal baan ahay. war waxaa looma baahna maanta Somaliland waxaa uma baahna 7 sano habar awal kursiga ku fadhiday, 7 sanaba waa talinaysay. maanta marka habar awal cabato oo ay cabasho muujiso dee Somaliland kalena barka war iyo beelihii kale Somaliland kula tegi jiray maayir moogana waxqabadku qabtay waa la arkay. marka waxaan ka codsanayaa, waan u sheegayaa gabadha Goosha Isaaq la leeyahay faamiligeeda iyo qoyskeeda iyo dee hadday oday iyo say leedahay war dee miyaad san kula socotaa? haddaa san kula socotaana dee cadaya oo hataa waan kula socnaa. haddii kalena qof dumara ciddii ka mas-uulhayd waa la garanayaa, dee ciddii mas-uulkeeda ahayd tallaabo ka qaad. anigu daamika gabadh xaaskayga ah umaan ogolaado inta midiyaa soo fadhiisato dee inay habar awal aflagaadayso ama reer Somaliland aflagaadayso. marka ama caddeeyo oo faamiligeedii iyo qoyskeedii iyo jifidii iyo jifi ahaan ciddii ka soo jeedaa u caddeeya doo inay kula socotaan aflagaadadan. haddii kale tallaabaha laga qaado dhaqan xumadii hore ay baraha bulshada ku caytamaysay iyo mas-uuliyiinta caydsiyo beesha dhan beelaha dhan Garxajis iyo habar jecel aflagaadeynaysana raali gelin ka bixiya. Somaliland midaa loo baahan yahay, Somaliland horumarta loo baahan yahay, madaxweynaha cusub in la iska rab taago wax lala qabtaa loo baahan yahay siduu waxqabad u muujiyo. maaha maanta inaynu naahno qoryayno waayo habar awal dee haddaad qoryo la fulaysid dee 7 cisho gudahood markii habar awal Muuse kursiga waayey calanka Soomaaliya qaatay. heerka maanta talinaya waa Garxajis, shalana habar awal baa talinaysay. maalinba mid baa dee ciddii lagu gartay qaranka Somaliland saxdoo u danbaa la saarayaa kursiga. cidi iskama leh. 7 sano talinaya Muuse wuu jabiyey ciidankii qaranka, gobolladii qaar baa go'ay, Somaliland gudaheeda kala go'aysay. marka Muusena hore waa tii loo taageeray markii 2017 dee sidii loo saaray la ogaa. maantana markii lagu afgaran waayo waa laga qaaday. Cabdiraxmaan baa la saaray. Cabdiraxmaan beri haddii lagu afgaran waayo waa laga rogayaa. marka
waxaan dhalinyarada Somaliland guda iyo dabadba ugu baaqaya inaa gacmaha isqabsataan inaa soo hadiya habeenba ka shaqeyno sidii Somaliland horumarkeeda waara iyo nabadgelyo ay gaari lahayd. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.